بسم الله الرحمن الرحيم سيدان هوريبا u ballan qaadnay waxaan tagi doonaa goobo kale oo ka duwan kuwii hore waxaan tagi doonaa beeraha ay ka baxdo basashu waxaan raaci doonaa isla mootadan isha ku haya beeshka Axmed Xirsi sidoo kale YouTube-ka iyo TikTok-ga aad baad mahadsantiin namariya waxaan qoodiyo wanaag intobliyo harac qabow inaan kugu hoysta rabay waa maalin iiga duwan maalmaha kale waa maalin dalxiis maalin dalbarasho maalin oo ku soo ogaanaynay khayraadka uu leeyahay dhulkani ballaadhan oo ilaahay nagu manaystay ama nimcooyinka gaarka ee ilaahay ugu talagalay wuxuu hadalkaaga yidhi ninkii hayarbay heshiisa gudhee ninkii hedladah muxuu horumaray adaa horsaday nafsiga eeryada guudkaaga waxay ahayd xikmad ka mid ah xikmadaha ay ku dhaqmayeen dadkii aan ugu tegay isla carriga ballaadhan ama dooxa bamba gaar ahaan qabalaha xaarey ku hoysta rabay indha doogsi iyo ashqaraar kadib waxaan aqoonsannay ama aan ogaanay khayraadka uu dhulkeennu leeyahay inaana laga helayn goob kaloo ka baxsan isla dhulkeenna ninkii u hedlada dhididkiisa maala ama isku daya inuu wax kala soo baxo inuuna maalinna ku khasaarayn yidhi ugdheer ruuxii qodaa halista kama baaqsade adaa horsaday nafsiga eeryada guudkaaga waa dhaxal aabbaheena inooga tegey waa dhulay noo soo xoreeyeen ama ay dhididkooga soo geliyeen qaar waxay waraabiyeen dhiiggooda maantana kuwii ku raaxaysan lahaa waa innaka muruq maal fikir intaba way kaaga baahan yihiin inaad gashato dhulkaaga ku haadshay gacan habeeniyo maalin hankaagu idhaabsanaa aniguna markhaati ahaan waxaan u soo joogay dhallinyar fahansanayd ama garanaysay qiimaha uu leeyahay dhulkani siduu ahaana uga faa'iideeyey ama hedalkooga iyo dadaalkooga geliyey adaa horsaday nafsiga eeryada guudkaaga furay horay xikmad ahaan u soo dhaheen wixii ragu kaco rabbina aqbalo miyuu raagaa durbaba sida geela loo tu'i oo mid ka mid ah nimcooyinka aan haysanno bannaanka la soo dhig waxaan ku haadshay gacan habeeniyo maalin hankaagu idhaabsanaa ku soo dhowow oo isha igula qabo mid ka mid ah barnaamijyadii ugu qaalisan ah ama ugu qiimaha badnaa ee nabid sameeyo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan guda gali doonaa barnaamijkii aan safarka u soo galay ama dhulkii aan ballan qaaday inaan soo arki doono waxaan joognaa isla qabalaha xaarey doox ka mid ah dooxyada lagu beero nimcooleyda ilaahayna siiyey ama khayraadku ilaahay nagu daaqa waxaan joogaa maanta beer ka mid ah beeraha basasha lagu beero oo ah mid ka mid ah ama kuwa ugu qiimaha badan ee lagu beero isla beerahani waxaan daawan doonaa oo si live u daawan doonaa basashii oo hadda baxday oo la ururiyey diyaarna ah inaa suuqa la geeyo haddii aad joogtid Djibouti meesha aad Ethiopia dalabku si degdeg ah ayuu kugu iman doonaa adiga iyo dalabkaaga nambarada iyo meelaha lagala soo xiriirayna halka baayoga ayaan ku dhigi doonaa si toos ah ayaad ula xiriiri kartaa dhalinyarta beertay isla nimcadani suuq ay hadda ku jirtaa waxayna u baahan tahay dalabaadkiina anaguna si degdeg ah ayaan soo gaarsiin doonaa namariya waxay ahayd maalin oon u baxnay inaan dal soo baranno waxayse noqotay maalin oon biirsanno cashar ka mid ah casharada nolosha gaar ahaan waxaan fariimaha u diraynaa booshariilayaasha maqaayileyda iyo ganacsatada Djibouti inaan si degdeg u soo gaarsiin karayno dalabkana kaliya iyaka ay ku xidhan tahay waxaan joognaa beer ka mid ah isla beerahaas waxaad arkaysaan bannaanka dhulka ballaadhan cas ee aad u jeedaan waa isla basashaas waxaan soo gaarsiin karaynaa meesha ugu dhow ee adigu aad ka qaadan karaysid ama dalabkaaga aad ka qaadan karaysid kaliya basalon kuma koobnin sidoo kale waxaad heli karaysaa qaybaha kale uu leeyahay nimcooyinka ilaahay uu ku manaystay isla deegaankan sidoo kale haddii aad u baahan tahay beer sidoo kale waa lagaa habaynayaa haddii aad u baahan tahay beer
sidoo kale adiguna inaad beeratid ama inaad ka mid noqotid dadkan oo kale waan ku soo dhawaynaynaa gacmo furan ayaan ku leenahay sidoo kale waxaad nagala soo xiriiri kartaa dhanka bioga iyo facebook iyo whatsapp intaba halkaa ayaan soo dhigi doonaa waad nagala soo xiriiri doontaa sidoo kale waxaan waraysi la yeelan doonaa dhallinyarta beeratay dhulkani sidoo kale inay u diyaar yihiin inay soo dhaweeyaan walaalo kale oo iyakuna ku soo xarig xidha gacan qabashada sidoo kale waa loo fidin doonaa tan waa dhulkaagii lagama laha adiga ayay ku sugaysaa inaad dalabka soo dalbatid oo keliya aan kuu keenno haddii aan hore soo aragnay iyadii oo la gooyey oo la diyaariyey oo u diyaarsan in suuqa la geeyo gaariguna uu joogo meel aan ka dheerayn hadda waxaan joognaa iyadoo weli aan la saarin ama aan la rujin saad u jeedaanba halkan waxay ka soo wada jeeda isla basashii ayaa soo jeedo oo madaxa la soo wada jeedo markii la saarayo basashaas ayaa la saari doonaa waxaana la soo dhigi doonaa isla suuqa saad u jeedin intaayoo dhanba way diyaarsan yihiin oo ceyoon dhow ayaa laga saari doonaa ama la bixini doonaa taasina waxay ahayd mid ka mid a siyaarashadii aan ballan qaadi jirnay muddada dheer ee aan lahayn waxaan siyaaran doonaa dhulka ugu qurux badan ama khayraadka ama nimcada ilaahay ku manaystay isla gobolkani haddii aad danaynaysid oo aad isleedahay ganacsi gal ama ka faa'iidayso nimcooyinkan ilaahay nagu manaystay keliya waxaa kaa xigay inaad nala soo xidhiidhid sidoo kalena lagu soo raro goobta aad geynaysid iyo meelaha adiguna ku fasaxaysid aad u raadsatid taasina annaka ayaa fududayn doono sidoo kale isfahanka dhanka soo qaadidda iyo in lagu soo gaarsiiyo goobahaad kasii qaadanaysidna iyaduna waan samayn doonaa ka wada hadli doonaa suuqu waa kuu diyaar keliya adigu has dhigan dalabkaagu waa muhiim bismillahi raxmaani raxiim mar kale waxaa noo suurto gashay inaan la kulanno walaalaha beerta isla beertan iyo basashani ka ganacsada ama milkiilayaasha ka mid ah soo dhowow muuse cali waan dhowahay walaalkay axmed xirsi aad iyo aad baan kusoo dhaweynayaa adi iyo daawadayaashaadaba dhammaantiinba soo dhawaadanay leenahay annagoo joogno gaar ahaan degmada shiniile qabalaha xarrey duleedka laga beerto beeraha aad iyo aad baan kusoo dhaweynaya walaalkay si fiican kolley waxaan jeclaysanay inaan kaa waraysano ama su'aalo kaa weydiino marxaladaha ay marto beeridda basasha iyo sida ay u gasho suuqa iyo caqabadaha ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay bal haddaad ka horreysid beeritaanka iyo marxaladaha ay marto kolley walaalkay axmed haddaan kaaga warbixiyo basashan marxaladahay marto kolley basashani waxay martaa 3 marxaladood marka ugu horeyso oo meel midaata lagu shubo kolley halkan nooma dhowo meesha lagu shubo waan tusi doonaa marxaladda koowaad meel midaata horta lagu shubayaa iyadoo dhammaystiran marxaladda labaad waa laga soo rujinayaa meeshii sidan ay tahay hadda yaa loo baahinayaa marxaladda saddexaad oo marxaladdan ay hadda ku jirto waa markay gaadhay waa la rujin doonaa markaas sidan baa maaragtaanay loo dhigi doonaa kolley waa shaqaalaha waxsan u dhigay marka basan loo dhigo haddana baarka laga jiri doonaa markaas baa la cabayn doonaa suuqgeynta la samayn doonaa kolley iminka waa 2 marxaladood waxaan joogno tan weli lama rujin oo ku joogto oo diyaar